وأنا وناكسن ميل كستو أدونكاد كتشوكتان هالكن وكالسن TV ودينكا إيمانيا لبدا مقالو إيماتانا ميابليسيو سيمبو هذا هو برنامج كي لما قعب حي كفتنكا سياسة إيو علي حراري هذا ما تبل علي حراري وحينو هيو إيو بل ميشا أي مريسو هي كفتنكي سياسة وي marka ugu horeysa dadkan daawada waxaan leenahay yaasino rabadaan kariim maanta dawli من نقل ربانتي بيو أن عبنا يا شاهي لكن ده بري أدي لقالوا ورمضان هي رمضان كريم بالله هاي تذكر الصومالي مركز نقدونه أنا نقول قالوا برنامج كنا صح وحن قبل أودنا خلاف كتاعن لنا كلو ميسك الصومالية هي بحوين وزير كلو ميسك دولة الفدرالية الصومالية إيه وزير هذا كلو ميسك قبلة معمول قبلة هي السيشل تسويمي هي أن باش علمك أيا شركة مرتجلسي صح وحلو إيجي إن سامية ذا كلا غيبسن بدل لقى قاتم مراكبتك وارسن إسا إلا السنة ذا للسيو إن لسلقرتو تبتنا خلاف أيا يمي يدو الشركة هري مقدسة لو قلي كنا للدنيا إنقو عنو لقصة صاروا جمال يساروا أيا شركة عرقات قش دولة الفدرالية الصومالية waxay ku eedanaysaa in shirka uu dhicisoobay ay mas'uul ka ahaayeen Puntland marka way hadleen waxaana ka hadleen sida shirku uu dhicisoobay iyo sida Puntland ay u dhicisay shirka waxay ku eedanayaan Puntland inay doonayso inay qaadato saami lamida ka dowladda federaalka waa Puntland ayaa iyaduna imika hadashay oo iyana ka hadashay inaan shir burburin ee dowladda federaalku ay iyadu tahay cidda carqalad iyo hawsha wadaba marka ugu horeysan dadweynaha u soo gudbino wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo arinta ka hadlay tiradana waxa ka mas'uuliyad dowladda Puntland oo diiday oo iyagu u arkay inay sadkoodu sida dowladda federaalka oo kale ay yahay afartii dowlad goboleed oo kale badanaantood dowladda federaalka ah iyo anaku weesar raacana oo waxbaan isku heshinay marka nasiib daro noqday marka shirka Seychelles ujeedadiisu waxay ahayd waxa la filayay in heshiis lagu gaaro halkan bishii April waxa lagu gaaro marka xagga Seychelles waxay ahayd calaamasaarkii in la saxeexay iyo dabaaldegii ahayd heshiiskii xamal lagu soo sameeyay maadaama shirkii xamar guul daraystay marka Seychelles horaa loo sii qaban qaadiyo waxa maaragtay waran ajaayib wey sabab wacdi warka هي بل فكر كي قبان Puntland بان إيانا إيجنا وحوي وزيرك كلوميسكا Puntland أو يسونا كهذا فشلات لبدي شر قدامي والله كلا قبتي مقدشو إيو سيشلس لونا قبتي هير فدرال إيو أن لو كلا مغنين هير دولة قبلاديو loo dhamaa la isugu yimi la isku bartay lagu heshiiyay lagu wada hadlay bayaan laga soo saaray ama communique nibasu yaqaano ama warmurtiyeed nasiib daro wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee federaalka isagoo aan iman shirkii Seychelles iyo wixii ka soo baxay isagoo aan tixgelin ayuu eed u soo jeediyay dowladda Puntland shirkan sidaasaa kaliftay war saxaafadeedkan in la qabto sidaa daraadeed xagtintan naga soo gaadhay dowladda federaalka wasaaraddeeda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ayaanu wax runa oo aan ku tiri ku teenahayn oo leh qoraal leh oo saxiix leh oo time leh ama waqti leh sooyaalkii dhacay dadka wala wareerinay meel wax socdaan meel uma kala socdo sax way warniyo horta waxa la isku hayaba وحوي مراكبتا Soomaaliya mushaaxaysa qaarkoodna ka kalluumaysaneen laysanada la siinayo bal isku haya qolo aan laysansiin horta ma jirto qolo walba badeedii iyada la digtay iyada oo ogolaatay in nuclear-ka qashinkiis lagu aaso in kalluunka sharci darrada lagala baxo marka maamul goboleedyada siiya fasax iyagoo lacago ka qaata qaarkoodna iyaga laftooda ayaaba soo iibsaday maraakiib ay ku kulmaystaan marka badii ayaa maamul goboleedyadii isku haystaan
أول عالم كقول اسكو هيست عالم ككله إما كيجوا اسكو هيست يجوا من حصل قلق بل مركو هو هرسا لبدا وزير أنا داوني من الفدرال كياسين وكسعودي من وكسعودي هدي لها كوري هاي مامل كمبيوتران لبدا بقى وحكسوا شيئا بوهله والوي هي دبض ما يعرف فضل حاجتها الله هي وكلهم حكمية قانان هي لما يشغلوا كلهم كانوا لا يضربوا يا خالد عمو كلهم كسووا ليها هي سوماليدا بل حتى ريرها كلهم كي يحنحنا إن wax laga weydiiyo oo noocyada kalluunka kala garanaya oo xilliga la jilaabta garanaya oo meeluhu ku badan yahay garanaya oo maraakiibta garanaya oo leeyarska badda ka xagga sare imanaya ka xagga hoose ku jira goosatada labada nin kalluunka ma cunaan laba nin reer kalluun ma loodo hilgel haye marka labada nin hawshaas waxbay ka qaribeen haye waxaan fili doonaa in la sixi doono marka wasiirka kalluumaysiga la samaynayo in laga dhigo nin khibradiisii leh nin khibradda badda yaqaana marka laga hadlayo beeraha in laga dhigo wasiirka beeraha meel ay beeruhu ku badan yihiin sida shabeellaha hoose oo kale in siyaa loo eego ayay ku fiican tahay waa saas waayahay madaxweyne farmaajo horta diyaarad buu ku degi lahayd dowladda diyaaradiisu caadi ma wala diyaaraddan iyaga soo doonaysa isaga naftiisu farmaajo imikuu fahmay xasan sheekh markuu lahaa war bahasha kadib inaanu xasan bahasha doondoonane bahasha iyadu kusoo doonaysa waa ikan soo bax kaalay hadduu madaxa khaatib u taagan yahay sacuudi arabiya ayuu booqday dabeetana qadar baa yeedha haddana qadar buu booqday weli madaxweynuhu maxay sacuudiga iyo qadar ugu yeedhayaan gaalka ma dhaafo waa labada dowladood ee burburinaya Soomaaliya waa labada dowladood iyo imaaraadka marka la isku daro dowladaha carbeed waa dowladaha doonaya si indirect inay u wiiqaan Soomaalida iyagii baan israacsanayn oo midaysnayn marka markuu madaxweynuhu dowlad booqdo tii kala shaqeeysa anaga noo inuu leeyahay iyaga kala shaqeeyay qadar baa yeersa inta qadar wuxuu leeyahay sacuudiga maxay ku yiraahdeen ballan qaadiyada heshiisyadii ka bax annaga sidaa ay sidaa yeeleen waxaan Cabdullaahi Farmaajo oo confusionka wareeray lacagna ma soo socoto wuxuu ku dhex wareeray nimankii lacagna bixin maayaan taasna waa hayaan arwaxa tacaalkooda batay waxna bixinayaan marka siyaasadda meesha ku jirta waxa weeye waa siyaasado ku salaysan dhinaca shidaalka oo loo baratamayo ama loo tartamayo oo mid walba uu doonayo inuu soo ka noqdo hormuudka dowladda qatar wiigan waxay aad u ammaantay oo ay bogaadin soo jeediyeen habdhaqanka siyaasadeed ee waddanka Iiraan dabeetana carabtu dhan baa xanaaqday sacuudigii baa xanaaqay imaaraadkii baa xanaaqay kuwait baa xanaaqay aad baa arrinta looga xumaaday wala xanaaqay marka mar haddii Iiraan ay soo dhaweysay oo qadar ka cadhaysiinaysa saaxiibadeed waa inay ku muuqataa inuu jiro dagaal hoose oo qadar iyo sacuudiga isku hayaan من بابر واحد لقى شيء وحيري من رمية مركل لقبتها كونغرس قاعدة واحد من رمية أيا ياسينو وحصقر يعني برعو بتروح إسرائيل لبنان إنه مال تاجون شيء سنة ولا ممكن يسكت يسوي شيء كذا مركل ويمادو أي أنا مركز عامسان سيانو شيء كذا هو مغلب سرتو وكتر على بكرة هو عامسان سنو ضاعت مركل وحصي إنه حمانا حسر مجال برعو وكحمنسا marka adun bay ku hadalaa u tigtid baad sheekadii joojinayaan waxan dabeetana laba koona ku sheekaysan wuu soo gabaday markaas uu ag istaagay hadal dheer bay ku sheekaysanayaan waxay ka hadlayaan siyaasadda waddanka Congo la yiraahdo gaadhi uma joojinay sheekadu iska wateen marka aaminsan buuri marka la qabtaabay Congo iska qaadaabay marka la qabto ay Congress ku qaada hada dalkan aan qadar kale imika isku qaadaysa Iiraan iyo hawlaha la dirsa muran siyaasadeed oo dowladaha carbeed ka dhaxeeya ay markaas ku wada dhacayaan Soomaaliya marka madaxweynaha dib ku fiis buu qaaday imaaraadka tag soo noqdo sacuudiga tag soo noqdo triangle-kaas ayuu ku jiray ayuu ka dhimalay سأل سعيد مقدشو اسبدر كجرا حويه ياسينو waxa la sameeyay gudoomiyaashii degmooyinka si aan hore loo sameeyay jirin ayaa loo sameeyay markii hore hal beel qurba ah hal beel kaliya laga taxjiray ayaa 16 degmo oo oran jiray beeshayadan
ayaa magaalada iska leh sida iyagu de ku andacoonayaan marka dowladdan cusub ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxay sameeyeen 16 xubnood gudoomiye oo loo kala diray degmooyinkii gobolka Banaadir wajilujan Nobel isma yaqaanin dilash waa caasimad yaan mar walba loo oran reer hebel ba halka joorey waa in dadku ay noqdaan dad isku jira dad Soomaaliyeed oo isku jira saddex galay ilaa ninka gobolka la keeyay ma ajnabi de صح Eritrea kama iman waa nin Soomaaliya marka caasimadii waa in la isdhex galaa oo wax la wada cunaa oo 4.5 kan baasada layna daba dhigay lagu qaybsadaa de xogaa wixii loo ekaysiyo formality laakiin dad kala duwan oo wada dhalinyaro aad baan taageersan ma arrin fiican wey dad kale saddex geli dad badan oo diidan ayaa jira laakiin waxaan eegi doonaa wax qabadkooda wixii ka soo baxay aanu eegno Hirshabelle madaxweynaha Hirshabelle على عصب السياد أي نيروبي تجي بتنوه هذا لوحين وخصب إن مقدشة أنا خصب إنه معمول قبلات وخصب تاسع ودرب هي يا وريره هذا تيسبي عليه مروح الكارانيو لنا عاس وحي كتر سيهين لنا عياق هيرشبل هي معانا نقص كذا هذا مرة ما بيسكو هذا واي قبل كي أي فهم لا يدقى أهان إنه صقعه مش عادل هذا مركز دقالة هان قول كذا مركز فهم ويلي ليش دقالة ولا سمين كريس وين بنادر يوم أكتر نرجع هذا نقول الشباب اللي سكوا قاعدة بيدلا عايدة مقتل هذا ميل مركز سالو فريسين اللي وراه واحد يشا فدرال كنا حبي كوسو جيني أدوكنا الدبارة يدين عبدوا وحقل نحقل مركز يقولوا حكي ما له علم معنا نقال حمر بوري وإن معمول قبلات laga sameeyaa maamul goboleed waa magaalada madaxdii waritas haye على عسل السياد دورت hadalkiisii aan isagana aan dadka daawasino gobolka Banaadir waa state waana la dhisayaa state-ka weliba waxaan idin sheegayaa hadday Puntland Jubaland dhistay Hirshabelle ayaa dhisaysa gobolka Banaadir تعالى هو خصب بكليه هاي لا سميه إلى نادي كريماي هي يسوي وحكل سارك لا يا جوهر يبغون وليه شيء هير شبل وشبل الذي دحى وجوهرة يبردوين وهيران تيا لبدو ذي با مدح سكوتر أي مدح سكوتر هي دود ما اعتراف سربا وسوى أنا ودح قدين هي ملك ود وكذا هو حنا هيستمرت ديواتد ويا هي على عصبلنا أنت حسن كويتنا يدور شوينكي بنادر هي ويا نيو waxaan u tagi doonaa arrin murugale oo runtii dadaan ku jiro ka ilmeysiisay oo ahaa gabadh la jir dilay oo aabaheed garaacay oo dildilay magaalada Hargeysa iyadoo lagu eedeynayo wiil aanay isgeyn oo dadka laga tiro badan yahay ama Soomaalida qaarkeed dadka la yeesaa ilaadan gaboyaha ayaa gabadh guursaday dadna gabadhii markuu guursaday ayaa aabaheed isaga aabihii wiilkii ka xaastay wuxuu u tagay gabadha aabaheed si uu yiraahdo aan isugu ducayno ways maharsan odayna bud buu qaaday la dhacay odayga kale la dhacay gacan kale uu dhaawacay ninka wiilkii odaygiisa dhalay ayay wax ka dayaan waradaa xarkay dhibaatadaasi xagee ka socotaa horta markuu u warsa qadiyadani qadiyad cusub ma waa qadiyad ilaa de soo taxnay qarniyaal soo taxnay oo waxba laga qaban waayo welina marba case baa soo baxaya hadda mid laakiin boqolaal case oo aynaan ogeyn baa jira oo sidooda lagu laqo baa jira ayaa jira khaladaadka ayaynu qaar tilmaaminaa marka u warsa wiilku khaldan wiilku laftiisa khaldan waayo wuxuu ku khaldan yahay ilaan arrinkan weli heshiis lagama noqonay Soomaaliya dadkan way dhibtay way dhibaateeyeen weli dhibaatadii la joogta oo balan torta meel la isla dhigayo wax nimankan idin dhibaateynaya de gabdhihiinii baa meesha ka buuxee inaad yartaa guurso inaad abtidaa guurso marka hore si aad nabadgelyadaada safetigaaga oo fiicanta okay kol haddaad dagaal galaysid dagaalkii inuu meel dheer kula gelayo waynaad ogaataan la bareedhaade
dee gabadhii la baxso xamar la tag marka cid baa weydiin hawa ku soo noqonaysa hawa soo noqonaysa haye gabadhii baan intaan haddii ilaahay ku reeyahay soo yara xanshariyo baan haddana soo noqonayaayo markaasaan isla odaygii odhanaya dee gabadhiina waa tano brian ana ila joogta isii waa dagaal sidiisa waa dagaal cadwi haye weli heer aynu sidaa loo qaabilo oo loo bislaaday ma jirto loo bislaaday maaha haye taas waa taa haye gabadhii si sharci daraa buu ku kaxaystay dabeetana uu yidhi waa ku guursaday waa kaa haye odayga aabihii isna wuu khaldan yahay haye wuxuu ku khaldan yahay kol hadduu yarkii yidhi war dagaalkaasaan galay oo gabadhanaan la baxay oo soo guursada waa tan dee wuxuu odaygii ula noqdo صدق وها برسي قطوها إنه ريفركيس سي قطو ويا سيك حيستو هو هيد oo fariin iska sii horreysiyay oo si gobol xaado ay ahayd taasna taasay odayga gabadha dhalay wuxuu isna ku khaldan yahay dhinaca bini'aadnimada ciilkii uu reerka u qabay ayuu gabadha ka jiray inna lillahi wa inna marka gabadhi uu jidkeedii googooyay qofkan oo kale lama oran karo waa bini'aadam salo dilay yaasino sida aqalgalka hargeysa marka leeyahay gabadh dirac buleysla taa la xidhay 6 bilood oo sharciga ayaa sidaa adoo sharciga ninkan bahroobay oo kale ee gabadha sida imika aan arkayna ka gulaya de kaasoo kale way sharciga in la taago kaasa u baahan 6 bilood oo criminal 6 bilood ma aha criminal way waa dambiile haye marka inta lagu meereysanayo gabadh yariba duruuc gashada iyo heel ba xamar tagay iyo arinta muhiima tana wala ayaa wala bal hadaleen dadka ku daalay horta marka hore aan daawano video way sudan gabadhii sawiradeedii isagoo video odayaashii wax la kulmay horta aan daawano cabar kacay waxa la hoodo muqtaar yuusuf faarax waxa sal lagu galay nin gabooyaba doonatay ayaa la daldalay markii la maqlay sheekada waxaan xilnaa 3 habeen 3 maalmood ayaan xilnaa xadhiyo lagu hayay qamaayo qoorta ka xilnaa ninka midgaanka maxad ka doonatay waa lagu sheegay bilood baan ka soconay aan soo meersanay markii la isku haydiiday ninka waxaan leeyahay hay gargaaro caafimaad sare aniga oo weydiisanaya ilaahay hayla garab galo baa iskuursadeen baa dhalay markii aan ogaaday inay soo meersadeen isqabaana aabaheed baan u tagay adigu sadexaysid baan lahaa moogta oo taawad ma ciyalka istorteen aan isku dacayno tii la muusugin bee oo ugu bilaabay furbi ugu bilaabay burkii markuu ugu bilaabay inankaygi oo gacanta hayaan la baxsaday inantiina waa la qabtay waa la daldalay markaa iyadina bilow bay ahayd oo de hore iska soo meersadeen oo waxay qabeen adigu 3 bilood ay qarsood isku qabeen ducadii iyo wixii aan u siday sawtan bug lagu bilaabay ee waxay ahayd annaguna gabooyaan nahay iyaguna waa isaaq sababtaas un baan anagu ma garanaysan lagu diiday ku arka wixii naga maqnaa waka ilaahay maanta cadeeyay waxaan nahay dad walaalihiina oo Soomaalilandara waxaan dad islaama bal cidda annaka naga xarimaysa inaynu hablaheenu ay iskuursadaan iyo nimadeenu diinta islaamka idiina fasaxaysa in gaaladu idinka guursato oo gaalada in badan ay ku faraxdo marka gaaladu ka guursato annakoo islaama oo shahaadanayna oo isku dhaqana oo isku dala oo isku afa oo wax inoo kala doonayna jirin waxa hablihiina naga xaraatimeeyay gaaladana u fasaxay bal culumada aliga madax iska shadeynay tan waa adag tahay waa arin adag wey aad u adag samaay arrinkan ma garanayo Soomaali yaasiin goorta ay ka gudbi doonto ma 100 sano kadib ma 110 sano kadib laba qof oo walaalo ah oo isku afa oo isku diina oo muslima oo isku meel ka soo wareejida oo ninkii uu shaqaysanayo la leeyahay gabadha lagu ma siin karo ma siin karto wali wey waxyaabaha caalamku ay nagu la yaabayaan ayaa waxaas ka mid ah waxa laga yaabaa dadka xuquuqda bini'aadam ka shaqeeya inay wiilka iyo gabadha u naxariistaan oo qaadaan ay geeyaan dibadda u geeyaan innaguna haddii nahay kaftanka siyaasadda waxaynu qoraal u gudin doonaa human rights ay nooreen dadka waxaan doonaa wiilka iyo gabadha isha lagu eeg bal isha lagu hayo hawshaasna waa hawl aan halkan qura ka taagnayn Soomaaliya oo dhan bay ka taagantahay madaxweynaha Puntland ayaan iyana ku tusi doonaa isagoo ka hadlaya oo wasiiradiisa qaar ka mid iyagoo cunto u baahday
ويري مخايدان كقدنا ليهين مخايد قوين كجبوي هذا إني قد كوين نكعبنا كوين هذا بل مدحونا هم داون meel baan tegey maalin group baan u sheegay meel baan tegey oo dadkaas ay degan yihiin markaan tagnay qaarkood dadkii ila socday ina ana cabaan midii anigu macaan meeshaas ka cabaan كوسيسا بريمتيف مش أنتونا كوسيسا يا كان مريض يا واحد ضرب مركب نسخان نجاها حتى أنا ما هي لو حتى بريسا واحد نسخان كه ودمن وأديهوي it's you واحد دين تيسو إسلام ما يدرس أي دمتها وأديه سجى ما it's not him it's you أنا كنا نركها مركب ثامن كذا صوته سؤال ما نقاله قلنا بالقراء وحوا relative it's a matter of degree حتى بيزنس كذا كش يا والمركز والسكلتك هي قومية داسي وقومية دا وياه أرن كله أيام كل فاقة يا حوجة أو يرأيك قبل كنا نشوفنا من صورة أيام واحد شرب بروبوزل هندسة شرعيات لدون يو إن لقوا تشوفوا إن سومالي عيال كده قدام بقى هي وقبلها أما حلالين قبلها هي كدب مركي حب بناء لماذا كره حسن لو أركي حب كان قدنيك سومالي هي إمك قرقري يرهر أيها اللي سودة بقليه هي وحل مضن دونا قفك يسكت دين يلميه سجده شن سنضاد أو تشارة بتنا لترحيله وحمضن دونا إن المهل يلوريو إنا لله هي waxa la sheegay in waalidiinta qaarkood ay ilmaha ka xayaan Soomaaliya ku soo gudaan oo ay yiraahdaan hadii xitaa dambi tahay dambigana kama dhicin Mareykan wuxuu ka dhacay Soomaaliya isku meel kama dhicin arrinkaas imika isna loo fiirsado waxa la leeyahay hatta Soomaaliya hadda ku soo gudo la ogaado wala isdaba galaya marka timaadid 5 sanadood wa 5 sanadood la qasay waqti badan wallahi kaliya ka lagu shubay waalidiintii ayaa imika wareersan شرب بيقبتين ولا يسيمي أوكي والدين تقاركود أيام مريكا كلا صعدة قار كم ذا والدتي قار كم ذا والدتي وأرز الولية ديدن أوله قدنين كان يوحن وإن لما قد ولا ما قد يكره وكل يرجعني الدولة دي بتنقلون كاس يا صهر كعيس يقولون بالضاق يورد يكوي مريا ما له هرجيس ما تكتب ولا محاور ما تكتب بعد ما تكتب يشورا يركض سوق زمايرتي هو دبات عادي قدنين كاس أيام دواء حلا الوطن كإنجليز هو يلا صوق شيء صدق الموضوع يريد أيام المهيد قدين هي ومن الشيء إن قدنين كاس أوتشرو عيال كي لما كم مجال سوق سكجري ميت كم مدنا إلهي بهديو وحق عنته كل جاي يسين عيال باكستان هذا باكستان ولش عيال يشرين كوي بدينتي اللي حي هو حاجة دينته يقولني كان لقى كلامي هذلين بقى هي والدين توكل دوين one day يضو مال بابليك أو مركز شاور لوجو بيستو أين بقى كان يركن صوماليا ونقدين بقى إنا لله إنما الباكستاني أرنت بقول شرحين يركو يكون عصب طيبة يركو حلقة وكل لا تنشر إنا لله ونوين هي مركز دينتي بآدو برتي وإنما بدنا آدو برين هي مركز أرنتي آدو وي هي حلاني هو يدي وحبي مشي هي وحنس آدو وحما أنا كل لا تنشر وأنا قدنين إن كستو إما كان دوني ناس قدوا ولكن ويجوين وأفر لا تنشر ومجال كشرة أيام قدنين سبب وديك على صوغبته هي قارب بدنا صوغ بندو أيام مركاتشرة أو بلد أو مينيسوتا أو تورنتو أو لندن أو سيدني أو ميلبورن أو أوكلاند نيوزيلاند نوبا ولا صوغ بندورة ولا صوغ بندورة السودان أو نو أو نور لوحين أو أضيع سانتي تسلايان أي بعيال كل إلابية عيال كم مجال إسكندرية قدني كبدة ملا كده يستني ملا كم غلط ما نمتش ودبات عادي ودبات هذا عادي أساس كجوري كبلاوت لقن حمضة هي وايه بالفيديو اللي أنكو داود سيو دودا لين عيدا بدن له كسبسن إنان المهل الجودين خير من الصورة الصومالية إلى دعوة say biilkaasoo ah in haddii lagu ogaado
ama lagu arko dadka jooga Mareykanka ama United States jooga intay ilmaha inta ka qaadaan wadankii u celinaya soo gudaya especially gabdhaha haddii lagu ogaado in maaragtay sharciga lala tiigsanayo biilka cusub oo la soo propose gareeyay biilkii hore ayuu wuxuu ku daraa oo si adkeynayaa oo micnaheeda ay tahay hooyo Soomaaliyeed ama aba Soomaaliyeed hadduu gabadhiisa 7 jir ee halkan ku dhalatay ku kortay haddii wadankii ula noqoto ama meel kale ay geyso gabadha la gudo hal ku soo celiso oo la ogaado investigation xoog leh in lagu qaado hadduu investigationkaas gabadha iskoolay aadaysaa elementary school ay dhiganaysaa ama middle school counseling ay leedahay waxaa laga yaabaa in ay ka fakato ee runta sheegto la dhaho wadankii lagu geeyay maxaad soo qabatay ay is ilowda si kastaba ha ahaatee haddii lagu ogaado oo gabadhan yar ay sheegto runta ay tiraahdo waa lay soo guday ee 8 jirna tahay ama 9 jir ama 7 jir gurigii waxaa lagu qaadaa investigation naad cunugaas kaliya maahan ilmaha dhan ay gurigaas degan yihiin waxaa la weydiinaa mid walbo maaragtay waxay u arkaan sexual assault waxa la yiraahdo wadankan ama abuse child abuse marka child protection ka imaanayo caruurtii waxaa laga qaadanayaa familkii oo loo sheegayo wadankan sharciga cusub yaalow aniga idin la hadlayo waxaan qabaa gabdho 3 gabdhood oo maasha Allah qurux badan aan qabaa wixii la igu sameeyay mar rabeen gabdhahayga lagu sameeyo ama gabdhaha dariska lagu sameeyo ama gabar saaxiibteeda gabdhaheeda lagu sameeyo Soomaaliyan aaday waa soo wacyi gelinay haddaan ka imaaday dhowr bilood aan joogaa tasha waxay ka shaqeysaa inay sideeda dhan waa outreach sababtoo ah hadda barnaamijkan la soo baasiyay waxa arkaysaa dad dhahaya saana loo qaaday iyo kana loo qaaday waxba looma qaadin waa wacyi gelin waa inaan u sheegna dadkeena in la wacyi geliyo sababtoo ah waxa waaye horta gabadhii xataa waxa la yiri 3 bilood 4 bilood ama 2 bari qofkii jooga xataa oo hore loo soo guday shaqo kuma laha wax anagoo kala waay anagaba waa nala soo guday laakiin waxa laga hadlaa waa gabadha born and raised inta ku kortay ku dhalatay oo ku kortay maantay biil la baasiyay oo lagaga hadlaayo gudniinka kolay waa yaqaaniin Soomaalidu ama maxaa la yiraahdaa Soomaalida kaliya xataa ma ahan gudniinkan waxa laga hadlayay waa Afrika oo dhan intii ay qosayso lagaga hadlayay marka waxaan dhihi lahaa anigu dadka u sheegi lahaa kolay waa ogtihiin inaysan gudniinku uusan ahayn macnaha wax diinta islaamka ku salaysan inuusan ahayn aan u noqono diinta islaamka aan uga faa'iideyno gabdhaheena wixii annagana soo maray inaysan soo marinin maxaa la yiraahdaa inay sida ay diintu qabto aan maxaa la yiraahdaa aan ula dhaqano wadankaana sharci baa ka jira sharciga ka jira waa inaad hadaad macnaha rabto inaad ku noolaato waa inaad sharciga faalo gareysaa hadaad rabin inaad ku noolaataan hada waa inaad iska tagtaa oodan sharciga ka hor imaanin waa cajiib weey taas waa cajiib sama waaya warba Soomaaliyeed waa la qaataan iska noqon waa dhibaato hargeysa waxa la socotaa madaxweynihii Khaatumo Cali Khaliif Galay ayaa jooga siyaayana isku arday baa jira sax way kulmeen way shireen wuxuu ku leeyahay way kaftameen horta siyaaya wuxuu ku yiri markii uu horeysay baashu moodi baashi gudoomiye wuxuu baashi ma waa Cali Khaliif wuxuu Cali ونود أدب عتوه سيد شرت أجرها يقول هلا كهاي شكين كريه ما أدب بري أسمت ويا عتوبي ما تشوف هذين تدوا حاس كله والله عليه لا يكره الدكتور ناحية النوايا كده هذا الشيء بس إيش كستنو حيل قال هرجس دوا صيد أحمرته كور نبت جليد يماش مركب والله هرت نبت جليد قاعد وفي عنتها مجالدنا قاعد بي وفي عنيد وقروح بدن تاي عصية شيء دون سنقانا لبنا نو اسكولون هانشر إلى لبنا ناخر أي هشيان لبنا نكسر كرتشون سومالان نبتقليو ما شرتو نبتقليو كم شرتو لبنا ناخر باوا سومالات سيرا وقصني أروح كليه تنكره إلى لبنا علامات أنو ينار بربرينو
de sidii Russia iyo markay heshiinayaan iyo Mareykanku waxay ku heshiiyaan in gantaalaha hab nuclear ka xambaarsan laga qaado wadanka Poland iyo in Turkiga laga qaado waxa sii jeeda arrimahaas lagu heshiiyay marka inagana ilaa laba calaamadood aan dumino diyaaradda magaalada bartamaheeda Hargeysa miiga ku sawiran meesha yaala iyo taangiga imika buuhoodla laga dhisay ilaa labada aynu burburno labada calaamadood waxay muujinayaan dadaal wax nabadda ku saabsan ma jirto weyn magaalooyinkeena dasurnaa oo muujinaya nabadda waa saas shimbirada adoo kuwa badaayo jeegaan waxyaalaha aankaas weyn magaalooyinka la dhigo barwaaqada nabadda weyn la dhiga mar dib la ficil diyaarsireeyay waa in minute أنا ميت بدعي كرتا أنا ميت بدعي كرتا هل كان ينبت كرتا هي وحيد سيا وحيد كور الدولة يد دولة نمان يوحنا والله دولة ولا حاجة نيو كوري أن وقد بوفي عنها نظامي وزارة فربان باكر السيستم اللي نقول رقميه لكن سينايو تنمو محي مقالنا وضلاء سينايو ما عذاره وضلاء فينا ما رأيه سينايو ما عذاره مسؤول ما وسيرك عذار بنو يا عسكرك عسكرك وضلاء ها هي وحنا بدأ دود هانلايت سومالي وتقنا وكورين يعني ميان سايشان وحنا أنا حوشة غير نمدو إلا وقربا أنا رأي حوالي الله يروح حنتاي ما شاء صار ناس أركض لكن تم غير نمدو حن سيدا دي نهدي هي كدب شيل الباب الأحرية بلا قلاي أيلا قلاي هي مركز الشركة وحكي صباحنا وين ويقدرنا هي نلعب بوزيتيف أي ينا يقدرنا وناك علدون أيال السوداء هي عبد الملك علدون ما شاء الله والله بس أنا لو حكومي أيال السوداء هي برنامج هراء يا شري ياسينو ما قرني الساد كحسستيه أحمد محمود سيلانيو أيام قعد صنع مركي الحكومي عبد الملك إن أسيدايو 18 ماي حلقي حسكا قون استاق السومالي أوغيد إنه سيدايو تاسين دلبنا تاسين بريقة كدلبنا بحوينها ونوهم بلياننا إنه عدسنا ياري سببت عشان لا تنكبال سيدا مركا استيتو ممكن دبالدك باهي ويكن دبال صوق علي صلى الله وبارك صلى الله وبارك والسيدا اللي دونني والله الله أيا لا شيء هي أن أبي أدنو فرح سنة أي ما أردت أسمي إن أردت أسمي ما ديات وأقول لك بين لنا علدون قبله الدروع له صدق ذيك قبل أربعة والسوداء والله شرف هي ويد هرقسان صعداء بركي بلوغ أتكم مركز لا problem بلوغ ياسك سعدا هي ورقد الفصح بالغابن صار بلوغ على إذا صدق ذيك قبل أربعة سيدا what's the difference let's go هي يا جماعة قبلها هاي رير ولير قاركود قانقور ما ونوهم بليان ما شاء الله عاديات همبلي حبسك اللي يسيدها همبلي وأرن أدوان أكثر وادف إن دتك اللي عفيو حليل ولبا بشر رمضان وكله إن أمد عيده وأدوان أكثر عاديات وياه وين كوب بدونا لو يعدون تينا هي لو يعده روح نرشقني ننحو كوه يستوي فيصل مقفي على الرضا إنكو حد ندي الحين على عياره هذه سوينا كسعة ودتك aad u dhibay inna lillahi haye qayradantooda video fara badan oo naga dadku soo bandhigay mid ka duwan baan imika dadku soo bandhigay haye faysal dadka wuxuu ka qaadaa baad haye xooga soo awood isticmaalay haye baabuur baroon askari saantay soo kaxaysanaya mid ka staff fara badan haye shaqo soo rogaya hay terrorized oo dhan moogta sayr meesha leeyahay maaray ku xigeenkii ay lacag baad weydiiyay haye مارك حين كبر مايو هي أرمها نويل هي فير بوقابل كريسو كودج ماري حين كان وسط دفاع هي كعليا بين نقطة هي حفيز كي بنا كلا سكول صدع صباحات بعد عليه أنت أسمر كده عليه ماري قعبو كشف ما دقة حين كدقة قعبو بفكيري سوري ماري ما هو حين كدقة حين كدقة مقالة هي قعبو كشف هي ذاك أوجد فيصلكم لأنك حوجو إن ده أدرك يسوع الدنيا ninka filimkan inoo soo diray kamarada ka soo duubay ayuu hadana la dagaalamaya marad wala dhacay nin walba farbaxsanaya anigu gaagasta lacag cunista waxa kaga daranba dagaalkan cunsiga farbaxsiga dheeraha marba xukuumadda Soomaaliland waa inagii wax ka codsan jirnay markan waxaan ka codsanay inta video soo bandhigay war balde xukuumaday hadii meesha dawladda jirto
waa in sharciga iyo dastuurka la ilaaliyo ninka dadka laga qabto ninka waa laga soo kaxiyaa ummadda shacabka uu saa u gelayo iyo isaga waxa fadli leh oo karaamo leh shacabka iskale marka inta Faysal soo dhaweysanaysa shacabka soo dhaweysa ha ku ogal doorashooyin waa la gelaya doorashooyinka awgeed Faysal istaga iyo dadka nacsiin meelaha la geeyo Faysal laga bedelo xagee ma madaxtooyinka namse xagee noorta isaga soo magaalada ma isaga magaalada inuu diinina warmaya waxaan u direynaa ana meel ku haya DP Wall بربريزة بربريزة أنا قاعد بربريزة دود عن قصنا DP Wall فيصل إنه ديبو فيصل مقفة إن كان لقيه أينو داوشو وعن ارتبط كهرب استقرا يا مصرف gobolka Salal isla markaana haatan siyaa kusimaha gudoomiyaha gobolka Salal hadii waxa ka taabto dhacdadii maanta waxa dhacay waxa abaar 10kii subaxnimo anigu xafiiska dib loo soo noqday guriga ku soo laabtay ayaa waxa si gaari xoog u soo galay guriga beelka soo galay waxa uu tii maamulaha kastanka iyo shaqaalihiisa qaar ka mid ah hagaasoo ay gacan ila yimaadeen dagaal ah taasna ay soo gaadhay gacantan oo hadda aan wali jab iyo dilacada tahay aan wali kala saarin laakiin aan raadiyo marin doono hadda la igno iyo joog kala ado oo badan wala soo gaaray hadda waxaan fariin u direynaa wasiirka maaliyadda oo ala wasiir oo ka noo keen cid mas'uul ah oo maskax degan oo si degan u shaqaysta oo guud karta hawsha aad u igmatay kamaanta arka dhaxad gudub buu ahaa warcad buu ahaa ashax daru ahaa maamulka iyo dawladnimada iyo qaranimada ma taqaan wax yeelayo ku farx insha Allah waxaan filayaa waxa dib u dhici maayaan waajibkeena waa laga mari doonaa haddana baarista gacanta waxa ku haya booliska araguna saas u socdaa ورد ألفرد يلاد يو ولا سكول بابا شيء قولنا صور دي ساعة قولنا صور يعس وقولي دي سوانس يا قولي سمي أكوا صور يعي لبوا بابور واسد هوا كده فرتم مرة كمرة سكول قال فيصل ننتهى فيصل ما قفيت أنا كي قدام هي وزير عدالة الشمال أيها واحد أتجي ودمه يربو شوي مثلا في لمبة قال لنا يركع اسمه لأن يردو organizer ما يحبسنين مركب ويرين لما قفوا كم مركب ويرين ما يسحيان بواي وحسحين قرية ضد وزير عدالة ولا ما هي دبتر ما يقبل ميان والله وشرو في سومالان حسبي كلمية ولبا ضد كسر لبا هاي كلمية واحد دونية إنه سيجارة ولا شرا دبتو من الله مالي فلسطين كشران بيوي بيجروان أربعة دباتي هي مخايب بطلان لا أيوة ديستانين كشران الله يسير بهم بالجانا فلسطين أيه سود ويسي أو فلسطين شاكيست أيه أنا كشاكيست أيه بيتنا بطلان أيه ماشي سكره أيه شركة بالله قال أيه قابل مركب برنامج سكول أيوه حلين ماشي بطلان لا كشري من أيوه كشرينا مركب يجير كده الله يحليه حلقة كي وحما والدلقاف يقف بس وجهه يسيداي هي وحكوليه كنيسة دبا هذا مسلم هذا صلاة كنت كتير ولا يا ولا والله هذا حكم كلام مركب ماشي قلت هذا كنت كتير صلاة ولا رسمان لنا تاي أبو سبب رسمان لنا ما قلت له هذا كشرتي وقليل ولا يا ولا يقول لك
والله بالله تصور سو دوينيا وزيرك ايا hadalkii wasiirka sida yidina oo yiri kaniisada hadda ku tagto wala aqbay ayaa hadalkaas soo gudbin doona daawasho wanaagsan martida qaaliga inoo joogta hortooda aynu ka muujino haddii ay kulmiya Finland wax la isu sheegay wax fiican si adab leh oo asturan inaan isugu sheegno oo gacantayda isu qabanayno wax ismaano taamcineedu ma aha khilaaf baa jira khilaaf meesha ma jirin laakiin araada waa lagu kala duwanaan karaa inkastoo wasiirka cadaaladda lumeeyo kaniisad haddaad gashaa salaada lagu aqbalay inuu halkaa gaarsiiyey aad baa wasiirka cadaaladda aad iyo aad baad u mahadsantihiin waqtigu way nala joogi doonaan muddo 3 maalmooda hawlo badan baa inoo dambeeya hadal badan baa inoo dambeeya shirar goosgoos aynu geli doonaa wareere wadhibaate ma waaye Puntland iyo Somaliland waxa ahayd iyagoo laba maamul in xiriirka dhaqaale iyo ka ganacsi iyo oreer nimanka horta boosana nimanka hore wax ka dhaxayaan bay ahayd labadu ciyaaraha iyo hadii la kula dhaqaalaha iyo wadashaha iyo meesha Puntland ma laha nasiya maanta meesha Somaliland ma nasiya wixii weynaa Yahuud iyo Falastiin saas u eegaraya noqon inaan noqon Soomaaliya dhibaato haysta waxaan klibkan u keenay waxa weeye حق أوليهن إن أي إصلاح قال يو كلا آمسا فكرة كلا دوين ويهير كم من نجار لكن وحن شعرها إن بالله سكوت يو إن حبها حب لغنك لسمايو يو وناجا لسمايو إن نجار حياة إن أنا كبر برسياسة سياسة تابت لاني سمالا نواتا واتاسا ومكوجد بدونا هي مركل واحد شعرنا سي تابنو باللي قبلي هي باللي قبلي حتى الشيخ عبد الحق شيخ خالد عانك دتك جيمانك يا كسار كسار marka hore hargeysu tagay garoonka joog garoonka baa buuxsamay haye marka biyo ku saarsaaraya 10 dadka video baan tusi doonaa suurtagal weeyay sheekh in halka ku sameeyo sheekhi oo xanaaqay ayaan isna ku tusi doonaa oo gaariisa ka haystay oo diiday nidaam darrada habka loogu balamiyo dadka loogu balamiyo waxaan واحد وجهه دان الشيخي لورن جيري الحق انه كحناقي وكسوي مغالده هرغيسا اميكا وكحناقي دد كحناقي نظامka aan ka jirin waxa la yiraahdaa meesha lagu ballamiyay ayuu ka xanaaqay sheekhi gaariga ayuu ka haystay imika toos ayuu baxaya nidaam laaba meesha ka dhacday ciidankii la keenay meesha ka shaqeeya ama way shaqay waayeen hada sheekh Abdul Haq ka me gaariga wada
markii labaad uu shiiku xanaaqay nidaam la'aanta ka jirtaay waxaad u jeedaan waa nidaam la'aanta ka jira maanta magaalada Hargeysa markuu yimaado maxaa la yiraahdaa markuu yimaado qof dhakhtar ama qof dadka daaweynaya inuu nidaam la'aanta intaas oo kale qof xal loo waayay in la nidaamiyo ama saf la geliyo aan ku la yaabay niyada magaalada dhan baxnuusan wareere dadkii garoonka weeye garoonka halka jooga okay sheekha xagu tagay balgubadle balgubadle ayaa imika waxa jooga 10,000 oo ruux 10,000 oo meel walba ka yimid baydhaba ka yimaadeen bariba ka yimaadeen waqooyiba ka yimaadeen meel kasta soo yaacay war ilaa anaga xaragna hudheeladii baa qaali garoobay ya meeshii loo qabtay wadaadka si nidaam leh ay reer balgubadle ay tartiib ugu sameeyeen intuu qaabilayo maalintii 1,000 qof ayuu arkaya war dadku dawo saxan yihiin ya dadka xaaladooda fiican casharka iyo quraanka iyo jimanka wixii u dhimsan soo saaraya wuxuu ka yimid boosaasu ka yimid haye sheekhu waa reer boosaas haye balgubadle taas ka taagan waa dhibaato haye marka buum magaaladii waa saas isu dhaafay business ko kala soo baabuurta Soomaaliya adeegga dambiyaano magaalada garmaayo Abu Hebel iyo waxa sameeyay maraya baabuurtooda moogta marka halkaan waxa ka taagan dhibkaas arrinkaas ku saabsan dadka jimanku ay sameeyeen marka waxaan ka fikiray istaad ninkan dib eega moogta sheekhaasi balgubadle iska warreeyay Hargeysa Minnesota haduu iman lahaa qaar baa dharka madaxa ku xiran lahaa markuu ku akhriyo ninka ayaa u yeedha halkan ugu yeedha gurigii uu soo galaba wadada dowladda Mareykanka tagi lahayd aroortii soo shaqo tagtay wala waada ya dadka dhow wadri imkan iyagoo dharkii gashan u callaanay aad u malayn markuu wax lagu akhriyo wallahi dharka dhiganaya waxa weeye bil khayr oo Ramadaan oo la soomi doono 30 maalmood ama 9 maalmoodba ma sha Allah ayaa inoo bilatay ummadda Soomaaliyeed waxaan u filaynaa in cibaadadaas ilaahay uu inaga aqbalo dhamaanteedba uu inoo fududeeyo xilliga wanaagsan inkastoo inuu waan 18 saacadood aynu soomi doono in ilaahay uu fududeeyo kuwa xagga jiray inta xanuunsanna ilaahay caafiyo amiin waxaan eegay reer magaalnimada dadka qurbaha soo dhaafay iyo rabadaanta soo arkaan haye Facebook iyo social media qofka horta diinta inuu fahmaa wanaagsan aan ma dhiwanay ka hadlaynay قولين حديث يا أخي عن حديثنا هين عن حديثنا هين يعني قرمين هذا الموقت الوصي فقان كريم أما قرآن كوسيكل وآخر مركا كوا السوشيال ميديا كحدلا الفيسبوك الصوغلا قارب حكلين أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أن سنبت قلنا أنت بشهر رمضان أسعته وبشهر رمضان كلية انت كلا وفص عنك dadka qurbaha jooga badi waxay u haystaan in bisha 30 ka maalmood ummadda nabad geliyo shaqadaada la wato oo la cibaadeysto oo markay dhamaatana hawshiga la wato la bilaabo marka inta sida maanka ku haysa waxaan leenahay war bisha Ramadaan ma 12 biloodba inaad ilaahay laga boqo aamin oo siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed beenta iyo ruwaayada iyo nin jeclaysiga hala joojiyo oo hala joojiyo dadka laga sheegayo wararka beenta aan waxba ka jirin ee social media gabdhaha la caayo ha laga nasto waxa faraha laga qaado in laga waantoobo ummadda Soomaaliyeed eeg dhibaatada Soomaaliya haysta Yaasiino ayaa waxa kamid ah Soomaaliya oo burburka ay burburtay ee qabiil iyo qurun iyo waxba ay la burburtay cid soo toosinaysa horta ninka doonaya inuu soo kiciyo Soomaaliya oo Soomaaliya soo celiyo Soomaaliya ay shaqeyso doo inuu yahay nin soo tafaxaytay Soomaaliya surwaalka soo laalaabtay dhexda soo xidhay garan gashan Soomaaliya dadka hadaba u soo kacay u soo tafaxaytay Soomaaliya dhisan suurada gashay wax la aqroonay awooshna halkaas jirto marka nin awoosh halkaas joogto oo suud gashan oo diyaar la socda xagu ka dad abaar ay baabiisay iyo dad qabiil baabiiyay iyo dad civil war dadaal sokeeye ku baabaay ma toosin karo dadkan suurarka iyo iska badbadan iyo baabuurta quruxda badan waxa inta meel dhigtaan iyagoo caadi ah horta ay maadaama sidii beerta loo ka qayb galaan oo hawshii kale hadii la ku reeyay abaarta ka qayb galaan oo gacantooda dadka u geeyaan islaanta dhimanaysa ilmaha ooyaya ee u xujideenka dajiye garan laha marka adoo taysita suud baadi illa u tagtid dee qofku uu saliyoonaya badada xoray waxa xagu ka yimi
kan ya adiga baa istisnimo iyo nooc kala wada marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay marka ay soo celiyo barnaamijkeena intaasaan ku soo koobaya way aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaadba cali xaraare barnaamijka kaftanka siyaasadda halka aad kala socoteen waa Kalsan TV anigoo ah Yaasiin Ducaali waxaan kaga tegayaa sidaa yahay nabad geliyo